ان عبد الرحمن حسن آذن قدوميه ururka jiidali عبد الرحمن waxaad nooga warantaa bal jiidali iyo sababihii ku kalifay inay asaasanto بسم الله الرحمن الرحيم haddaan wax yar idinka sheego ururkii jiidali sababtii loo asaasay ama loo sameeyay jiidali runteeda horta waxay ahaydeen urur dhalinyaro ah oo urur ay ku bahoobeen dhalinyarta ka soo jeeda beelweynta Subeer Awal sababta loo sameeyay waxa weeye waxay dhalatay maxay waqti sanadkii 2014 May 15 ayaan asaasnay sababta loo asaasay waxa weeyaan markaan aragnay baahida loo qabo markaan aragnay kala baahsanaanta amba fikir kala duwanaanshaha amba isku soo horjeedka dadkii beeshan ku soo jeednay oo noqotay mid xukuumaduna target ay ka dhigatay oo fikir kala duwan iyo awood iyo isdhexgal la'aan fara badan ay jirto yaan ururkaas sameynay markaan ururkaas sameynay waxyaabo fara badan baan ka shaqeynay waxaan sameynay maxay ahayd bulshada isku soo jeednay isdhexgalka dhalinyarada bulshada inaan wax fara badan aan sameyno runtiina markii aan asaasanay isla markiiba anagu wax badan aan jirin haddana wax dhacday conflict ka dhaxay kulmiye xisbiga kulmiye iyo isqabsiga Muuse iyo xukuumadda Muuse ayaa isaguna nala soo xiriiray Muuse markuu nala soo xiriiray maxay ahayd watiyada weydeen wixii ka dhacay oo maxakamadii iyo gulihii guurtida iyo madaxweynihii iyagu iyo inkii commission haystay saddex nin oo isku beelan ay noqdeen xukun markaa cadaalad noqon waayay oo maxay ahayd meeshaasi ay noqotay inaan ku leenahay roolkiina runtii waan ka ciyaarnay asaga arrinka waan ka aqbalay wax shuruuda kuma aan xidhin hawshii waan u galnay maxay ahayd xaflado kala duwan waan ay karo ku sameeynay runtiina wax weeyaan meel adag marka arka ka istaagnay aan hawshii wax badan la dhaqaajinay wax dhacdayna xukuumadii Muuse heshiiyeen annagiina wax weeyaan aan waxba naga weydiin oo tashanin dadna xukuumadii Muuse ku heshiiyeen kadib waan isku nimi dhalinyaraha waxaan nari maxay ahayd hawshan halkaas aan ku joojinay soo waan sii wadnay runtii in badanna fara badanna dagaalo fara badanna way nagu dhaceen taasoo ay sabab u ahaayeen Muuse oo target runtii ahaa oo wax weeyaan dagaal fara badan wax weeyaan asaga ay xukuumadda ka dhaxaysay runtiina la wada arkayay dagaalka sidoo ahaa tiiba waxay sababtay in annagana aan agbadhig weyno oo roolkayga wax weeyaan sidii aan hawlaha ugu qabsan lahayn suurtagal waayo waxyaabo fara badan runtii waxaan عبد الرحمن ururka jiidali wuxuu noqday urur in badan ay xukuumadda Soomaaliland ay aad uga qaylisay maxay idin suurtageliyay in heerka inta lag aad gaadhaan ilaa xukuumadii ay aad targeted ka dhigatay runtii target waxa weeyaan dadkaan ku soo jeednay iyo maxay ahayd xukuumaddu ka dhigatay inay isay doonto ugu takrifasho inaan noqono dad seexday aan baraarujinayno kale ayay sheekadu ahayd dad seexday oo iyagu isku hormanayo oo iyagu la isku adeegsanayo inaan anagu baraarujinayno noqono ayay runtii ay ahayd targetka ugu fara badan iyo Muuse horta runtii dagaal fara badan isaguna ula jiray run ahaantii anagu halkii joogine dhalinyaradii kale beelaha magaalada Hargeysa daafeeda waan sameynay waan isku nimid kulamo fara badan baan sameynay si dagaalka adkaay hawlaha adag aan anagu kaliya ugu noqonin oo maxay ahayd balaan yeelnada saaxiibo fara badan iyo dadka si walaaltinimo fara badan koladii la isbeegsanayo ayaan sameynay runtiina عبد الرحمن waxa jirtay in adiga dhowr jeer lagu xiray iyadoo target laga soo dhigtay hawlahaasi xarigada lagu kacay adiga maka weeqeen hawshii aad waday mise halkii baad kaga sii wadaa wali ma runtii anigu halkii baan hawsha ka sii wadaa ilaa imikadana waan ka shaqeeyaa hawlaha dhalinyarada وانا كجرا إلا مكذا ولا أبابلي قاركود حرين حول قريب كها وحوي يعني أبابل كذا هذا يو هذا وحي دلكورم بكيس يو وحفر بدن يو حول فر بدن دوان مر والبو كشقيا سينا هوش وانا كشقيا بهذا يعني تارك فيه كمان هذا يو جدين كي
hadafkaygina waan leeyahay insha allah dilaa ururkii jiidalay imika weli waxaa tahay guddoomiyihiisi miya gudoomiyihiisi waan ahay haa jiidalay way jirtaa halkuu ku dambeeyay markaa jiidalay yaa saa imika muxuuse qabtaa jiidalay runtiiniyo waxa yaro kala qaybiyey maxay ahayd awr way shaqayn jireen laakiin waxa yaro kala qaybiyey maxay ahayd dee siyaasadda kule lagu yar kala qaybsamayaa muuse laftiisa wuu yaro kala qaybiyo maxay ahayd dee runtii qaarna uu soo yaro dhaweystay qaarna wax dhacday waxa weeyaan inuu dee aanu laba soo xidhiidhinba runtiina taasina waa fikir lagu kala duwanaanayo dee qofka haddii qofkay wada shaqayn karayaan ba dee muuse wada shaqayn karaya kii kalena dee waxa weeyaan maaha qof asagu dee samaysto u qasbo cabdiraxmaan waxaa jira urur kale oo imika la magac baxay muwaafaqo oo dhowaan la aasaasay isla markaana xukuumaddu ay si weyn imika shaki badan ka qabto dhalinyaro badanna ay u xidhxidhay ururkaasi iyo jiidalay maxaa xidhiidha ka dhexeeya horta waxa weeyaan marna waa si guuda oo beesha sibar awala markaa jiidalay baan ku hognay markan kalena waa dhalinyaro ka kooban hay'adaha beesha Ciise Muuse beelaha Ciise Muuse oo muwaafaqo la yiraahdo runtii waxa ku jira xubnaha anaga waan wada shaqayn jirnay oo anigu laftigayga aasaaska dee waan la waday hawsha kuwan la xidhana xubnaha jiidalay bay ka mid ahaayeen oo waxa weeye dadkan wada shaqaynay bay ahaayeen markaa ururkaas urur Ciise Muuse waxaana abaabulayay maxay ahayd hawlaha iyo horumarineed sidii looga shaqayn lahaa danta guud iyo waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay waxa weeye dadku sidii ay wax uga wada shan lahaayeen talo gaari lahaayeen markaa runtii waxay wadaan qofkii dadkii wuxuu qofku samayn lahaaba horumar soo kordhin lahaa ma wax samayn lahaaba in la carqaladaynayo xukuumadduna odhanaysa un laba qof meel isku keenaya markaa ay beegsato xukuumadda ururkan muwaafaqo ee hadda mas-uuliyiintiisii qaar la xidhxidhay iyo ururka jiidalay horumarka dekeda berbera lagu sameynayo ee dekeda berbera mashruuca laga fulinayo mashruuca miyaad kasoo horjeedaan mise waa taageersantii markii hore dee maxay ahayd horta wixii horumarina waa la garanayaa maxay ahayd anagu dee wax horumara oo dalka usoo kordhay oo dhaqaale hadday noqoto shaqaan ku helinaa horta waxaa dhici karta in wax fara badan oo haddii laga hadlayo horumarin oo la ballaarinayo laakiin maanta sidaanu aragno waxa weeyaan arrinka wuu fashilmay maadaama uu fashilmay oo xukuumadda iyada laftigeeda arrinkay ku fashilantay oo maanta ummaddii la dhacayo oo lacag la rahmay meesha say u eg tahay annagu waan cambaarayna waan kasoo horjeednaa waana sababta inamada aanu ka hadlayna arrinka loo xidhay inamadaasna u xidhan yihiin waxaana weeyaan ilaa imikana waan kasoo horjeednaa arrinkaa mana ogolin maadaama uu arrinkii fashilmay ay xukuumaddu waxa weeyaan dadka u caddayn kari weyday heshiisyadii ay meesha kusoo gashay waxay dadka u sheegeen iyo waxaan meesha heshiiska lagu soo galayna ay kala duwan yihiin marka xukuumadda waxaan soo jeedinayaa maadaama arrinkii ay ku fashilantay waxaan leeyahay waxa weeye dhulka adeer maanta wax laydinka aqbalaya maaha meel lacag la siista maaha adeer halkani waa hal meel la wada leeyahay waa ishii somaliland waa meel kasta waxa weeye dhaqaalihii somaliland ku xidhnaa runtiina waxa weeyaan anigu way kasoo horjeeda arrinkaas waxa weeye arrin soconaya maaha bulshadina wayda fahamtay intaa laydinku fahmina meesha laydinku soo shiidin madaxtooyada waxaa la arrinkaa laga waantoobo dhallinyaradana la soo daayo waxaan ugu baaqaya dhallinyaradaa xidhan ee xaqdarrada ku xidhan ee maanta qofkii la iska xidhaya isagoo bilaa warar lagu keenayo ee bilaa waxba fikirkiisii xorta ahaa dhiibtay runtii waxaa leeyahay niyow si degdega inamada waa inaad soo daysaan bulshada reer somalilandna waxaa leeyahay wixii aragtidiin iyo fikirkiina ka turjamaya waa inaad taageertaan haddii horumar aad ka doonaysaan horumarka waa inaad kala garataan oo waxa weeyaan idin kala cadaadaa wax fara badan aad iyo aad baad mahadsantahay shukran adiga